kacaanka caafimaadka dijitaalka, telemedicine iyo waxa ka sii dheer. Waa subax cusub oo waa berigii horumarinta caafimaadka digital ah. Aqoontu waxay beddeshay sida aan u fikirno, ugu noolnahay, una helno daryeel caafimaad. Fikirka ah in lala socdo xaaladda caafimaadkaaga adiga oo jooga raaxada gurigaaga ma aha riyo dambe, waa xaqiiqo. Safarku wuxuu ina geeyaa qol caafimaad oo mustaqbal leh, halkaas oo tiknoolajiyadda telemedicine-ku ay beddeshay sida loo helo daryeel caafimaad. Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka, inkastoo ay fog yihiin, haddana waxay la xiriiraan bukaanada iyagoo adeegsanaya shaashado waaweyn iyo qalab casri ah. Maaraynta xaaladaha degdega ah waxay noqotay mid fudud, badbaadinta nolosha ayaa hadda ah taabashada badhan. Qolkan mustaqbalka, telemedicine-ku wuxuu suurtogeliyaa falanqaynta xogta caafimaad ee wakhtiga dhabta ah, taasoo keenaysa in si dhaqso ah loo aqoonsado dhibaatooyinka caafimaad. Helitaanka daaweynta ayaa sidoo kale isbedelay. Bukaanada waxaa hadda loo qori karaa daawooyinka iyagoo aan ka tagin gurigooda, iyagoo adeegsanaya nidaamyada elektarooniga ah. Xitaa tababarka jimicsigu wuxuu noqday mid digital ah oo leh barnaamijyo la habeeyey oo shakhsi ahaan loo sameeyey baahiyaha caafimaad ee kasta. Barnaamijyada caafimaadka maskaxda ayaa gaaraya heer cusub, iyagoo siinaya taageero iyo talooyin iyadoo loo marayo xiriir telemedicine ah oo lala yeesho takhasuslayaasha. Farqiga u dhexeeya magaalooyinka waaweyn iyo meelaha fogfog ayaa sii yaraanaya, iyadoo tiknoolajiyadda telemedicine-ku ay siiso helitaan siman oo daryeel caafimaad ah dhammaan. Isbeddelka caafimaadka digitalka ah wuxuu keenayaa in ka hortagga cudurrada uu noqdo mid hore loo sii qorsheeyo iyadoo la adeegsanayo xog iyo falanqayn casri ah. Qolkan mustaqbalka, wadahadalka dhakhtarka iyo bukaanka wuxuu noqonayaa mid aad u dhow iyadoo la adeegsanayo xiriirka muuqaalka, taasoo abuuraysa khibrad daryeel oo dhammaystiran. Tiknoolajiyada cusub ee caafimaadku ma aha oo keliya inay fududayso helitaanka daryeelka, laakiin sidoo kale waxay kor u qaadaysaa tayada daryeelkaas iyadoo siinaysa fursado aan xadidnayn. Horumarka caafimaadka digitalka ahi wuxuu furayaa albaabo cusub oo loogu talagalay daryeel caafimaad hufan iyo bukaanka aan socon karin in isagoo gurigiisa jooga lagu daryeelo, loona adeego hab casri oo waxqabad oo tayo sare leh, goob kasta iyo goor kasta. Barnaamijkii Ogaal waa naga intaas. Waa anigoo ah Ubax Ina Suldaan iyo soo saraha barnaamijka Maxamed Shooki. Waxaan idinkaga tagaynaa ismaqaal dambe oo xiiso leh.